khatarta ay leedahay dayntu nolosha adduunka iyo aakhiro labadaba. maanta waxaad u jeedaa qofkii raba inuu dayn qaato ama ha ka qaato bunuugta ribowiga ah ama ha ka qaato dadka kale ee muslimiinta ah xitaa waxaa suuragala inuu heli karo una sahlan tahay inuu dayn qaato. bangiyadu albaabada daynta way furan yihiin, way fureen, shuruuda way fududeeyeen. qofka inuu shaqo haysto wakhti dheer bay u qabteen. waxaa laga yaabaa in lagu yidhaahdo 30 sannaad ku bixinaysaa, wax weyn lagaa goyn maayo. albaabadii aad ribada iyo daynta ku geli ahayd waa lagu sakhiray. haddaad rabto inaad qof muslima wax ka qaadato iyo dayn, waa laga yaabaa inay kuu sahlan tahay. waddamadan baad ku nooshahay, waxaa laga yaabaa dad badanoo wax haysta inay jiraan in si sahlan wax laguu daymiyo. laakiin ayuha alaxiba, mas'ala qaadashada daynta waxaa ka dambeeya dayntu khatarta ay leedahay iyo dhibaatada ay kuu geysan karto. rasuulku wuxuu ka hadlay sala allahu calayhi waaalih wasalam, camal la qabto waxaa ugu fadli badan buu yidhi jihaad fii sabiili اllah iyo aliimaan billaahi subxaanaه wa tacaala. waxaa istaagay saxaabi, xadiiska imaamu muslim baa soo saaray min xadiidi abi qataada. saxaabi baa istaagay, wuxuu yidhi yaa rasuula allaahiyow, bal ka warran haddii aan laygu dilo jidka ilaahay anoo dagaalamaya, wixii dembiye ahaa oon lahaa oo dhan ma layga dhaafayaa? haa buu ku yidhi rasuulku sala allah alay wasalam. wax yar kadib buuhi rasuulku, waryaa kaalay iigu soo celi waxaad tidhi. maxaad tidhi? waxaan idhi buu yidhi haddii aan jidka ilaahay laygu dilo wixii dembi ahaa oo dushayda ahaa ma layga dhaafayaa? wuxuu yidhi haa, waa lagaa dhaafayaa haddii aad sabirto oo aad ajirna ilaahay weyddiisato oo weliba adigoo sii jeedo oo cararaya aan lagu dilin, adoo soo jeedo lagu dilo. laakiin bisharti daynta maya, daynta lagaa dhaafi maayo. wuxuu yidhi rasuulku jibriil baa sidaa ii sheegay, jibriil baa sidaa igu yidhi, daynta lama dhaafin. xadiiskaa waxaa la mida ayuha alaxiba xadiis kaloo imaamu muslim soo saaray min xadiidi cabdullaahi bni camar bni alcaas, oo isaguna uu leeyahay rasuulku shay kasta waa loo dhaafi qofka shahiidka ah, laakiin daynta maya, loo dhaafi maayo. waa isku macno labada xadiis. wax akhtaru min dalika, waxaa ka sii daran ayuha alaxiba qofka daynta lagu leeyahay ee ku dhinta een iska bixinin oon laga bixinin inuusan jannada gelaynin. almasala khatiira jiddan, inuusan jannada gelaynin. waa xadiiska moxamed binu cabdullaahi bnu jaxsh, xadiiska ay soo saareen imaamu axmed iyo nisaa iyo xaakim sheekh alalbaanina xasan uu ka dhigay. wuxuu leeyahay saxaabigaasi rasuulka sala allahu calayh wasalam maalin baanu fadhinay masaajidka bannaankiisa, meesha la dhigo janaa'isada marka la keeno. rasuulku waa indha kor buu fiirinayay, haddana hoos buu fiiriyey, dhabankiisa ayuu gacanta sidaa u saaray. wuxuu yidhi subxaana allah, subxaana allah, subxaana allah, alla maxaa wax adag xalay la soo dejiyey. wuxuu yidhi saxaabigii habeenkii waxba maannaan dareemin, subaxii waagu markuu baryay baan ku uhi yaa rasuulallaahi ow, maxaa dhibaata oo xalay la soo dejiyey? maxaa dhibaata oo la soo dejiyey? wuxuu yidhi waxaa la soo dejiyey daynta. wuxuu ku dhaartay marka rasuulku, fawalladii nafsu muxammadin biyadihi, waxaan ku dhaaranayaa allaha nebiyullaahi muxamed naftiisu gacantiisa ay ku jirtee haddii qof idinka mid ah ilaahay dartii uu dhinto, jihaad fii sabiili illah, oo la soo nooleeyo oo haddana uu dhinto, oo la soo nooleeyo oo haddana uu dhinto, isagoo oo dayn lagu leeyahay, laa yadkhulu ljanna, inuusan jannada gelayn. intaasoo ajira hadduu soo shaqaysto oo dayn lagu leeyahay inuusan jannada gelayn. xataa yuqdaa canhu daynuhu, ilaa daynta laga dhiibo. ayuha alaxiba, jannada hadduusan gelin xaggee buu gelayaa?
naartuu gelayaa rasuulkaa yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiiska samura bnu jundub wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waaalih wasalam aladii akhrajahu imaamu alxaakim wa saxaxahu shaykhu alalbaniy maalin maalmaha ka miduu rasuulku khudbad dadka uu aqriyey khudbadii markuu aqriyey ayaa wuxuu ku yidhi hal hawnaa axadu min bani fulaan war reer hebel wax ma ka joogaa war reer hebel wax ma ka joogaa war reer hebel wax ma ka joogaa markii saddexaad baan idhi buu idhi anaa ka jooga wuxuu yidhi maxaad markii hore u hadli weyday maxaad iga aamusta wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalih inna saaxibakum waa reerkiinna inna saaxibakum saaxiibkiin ninkii reerkiinna ahaa ilaan yaa ka jooga buu idhi qoyskaas maxaa wax laysugu yahay ayuha alaxiba maxaa qaraabadu ay qabataa muxuu qabiilkan haddaba cararayno uu kuu qabanayaa haddaan daynta layska bixinayn qabiilka uu qofku ku wardiyayo xumaanta uu u gelayo qaaraanka aad ku bixinayso ummadda ilaahay dhiiggooda loogu daadin muxuu kuu qaban haddii markaad dhimato aan naar lagaa badbaadinayn bilaahi calayka qofka caqliga loo isweydiin intaasoo qoyskiinna qof kuu soo istaaga haddaan la helaynin maanta markaad nooshahay waa la wada yaqaanaa hebel hebel wey nacfigaagaa la rajayn wanaag baa lagaa sugi doonaa maalin buu qofkii sida armu wax kuu qabtaa laakiin markaad dhimato qof dhabkaaga naxaya unbaa kaa naxaya wuxuu idhi saaxiibkiin waxaa xabsi uu ku yahay oo lagu xihay albaabka jannada u fiirso ninkaasi waxaa meesha ka muuqata dembi kale ma lahayn jannaduu geli lahaa laakiin albaabkii jannadaa lagu xabsiyey xabsi baa lagu xidhay katiinad buu halkaa ku xidhan yahay ee ma jiraa buuhi qof furanaya kelimada wuxuu ka cabiray furasho fafduuhu ka bixiya maaha war yaa furanaya maanta qofka marka xabsiga ku jiro soo lama soo furto war yaa maanta furanaya wuxuu yidhi ma furanaysaan mise naartaad u daynaysaan idan huwa yadkhulu الnaar haddii aan laga bixin ayuha alaxiba rasuulku wuxuu weydiin jiray qofka marka la keeno salaadu اljanaa'iza hal calayhi daynu dayn ma lagu leeyahay haddii la yidhahdo waa lagu leeyahay xoola ma ka tegay looga bixiyo haddii la yidhahdo haa wuu ku tukan jiray haddii la yidhahdo maya waxaa dhacday laba jeeroo kala duwan inuu mar yidhahdo salluu calaa saaxibikum isaguna iska laabta anuu ku tukan maayo ku tukada mar kalena wuxuu yidhi yaa ka dhiibaya abi qataataa yidhi yaa laba dirham baa lagu lahaa laba dirham waa laba shilin wey waa laba doolarood maanta macnahooda gara intay agtaada ka leeyihiin rasuulku wuu ka laabtay salaadda inuu ku tukado wuu laabtay abu qataadaa kacay oo yidhi yaa rasuula allah anaa bixinaya wuu soo noqday rasuulku waa ka wuxuu yidhi qofkii daynta lahaana xaqiisii wuu helay qofkii maydkuna waa beri noqday haddaan ku tukanaya waa ku tukaday sala allahu calayhi waaalih wasalam waa laba doolar wey ka warrama ayuha alaxiba meeqa doolar baa dushaada ah meeqaad dayn qabtaa ma jiraa qof ka dhaaran kara maanta inuusan dayn qabin dadkaan fadhi oo dhan haddii la yidhaahdo allahu almustacaan ayib rasuulku ilaahay buu ka magan geli jiray waa wax ilaahay laga magan galo ilaahay buu ka magan geli jiray ducooyinka aad aragteen allahuma inii acuudu bika min alhammi wاlxasan wاlcajzi wاlkasal wاlbukli wاljubn wa dalaci اdayn dalacu اdayn waa hiqalu dayn ilaahayow waxaan kaa baryayaa oon ilaahu kaa magangelayaa rabbiyow dayn inay cuslayso inay dayntu i cuslaysaan alluu kaa magangelaya mar kale ducooyinkiisa ugu badan oo xataa fi salaa uu ku aqrin jiray waxaa ka mid ah atixiyaadka dambe markuu ku jiro allaahuma innii acuudu bika min alma'hami waalmaqrab ilaahayow dembi iyo daynba waan kaa magangelayaa qof baa ku yidhi walacalla inay caaisho ahayd maa akara maa tastaciidu yaa rasuula allaahi min almaqrab alla badanaa inta aad ilaahay ka magan gasho daynta mar walba wuxuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi waaalih wasalam ninka ragga ah hadduu daymoobo dadka wuu u sheekeeyaayoo ninkii daynta kula waxbuu u sheegaa been buuna sheegaya ballanna wuu qabtaa wuuna gooyaa ballanta
هي نفط هذا كو تطبيق حديث كان بل أدو اسكو تطبيق براتك أدو يسوي لي نفط هذا هي مركز دين تقبت قورما وشك تادتك إيه إمو بالهبل ما يتكبح هذا مالين تعلم يقان تلفونك قبل ميس قولوا قاعد حتى لقاه لي ماي ما قال تلفونك ومضى كحرت الله المستعان. إذن أيها الأحبة المسألة رسول كاشيغي صلى الله عليه وسلم بحديث أخرجه إمام البخاري خوشو ويسهل أنت هرت دينت ولا قاضن هدي لو باهو حاجة ما صهو إني جرت باهي أدق وإني كوتاو رسولك وحولي صلى الله عليه وسلم قفك الدين قاتا أو قاتا إساقو دوني إنو بحيوه إلهي مكبحيني قفك الدين قاتا أو عن ربين إنو بحيوه ودلو الدين تاسونا كيننا الله أسخر ماي كينين ماي إذن أيها الأحبة جب ذا وإن أدعوتو خطورة أي دين تلاذا إذا كذا يوينانت إلهي أكتيس أكلها كو وإن أذكى إلى لسئنا الدين قاضته إلا في حاجة ماسة باهي أدق إن يكون تعلمون لبا إن الأغاتو قفك دين تقاطعي لا يدخل الجنة جنة إلهي إنه سنجلين طيب إن الأغاتو وحيابها لقى قاضنا يبنوكتا مانتا البابذوذا إني فرين صخرين سهلين لكن وحي كوية رياني والنار إي عذاب إي حرب إلهي ويا تقال إله طيب إن هدي الدين قاضته آد نيوته أو قوان كوغادو إن الدين تابحينيس أيها المصلون صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يأمر بالعدل